dagaal qabow markaan leeyahay waxaan filayaa inaad taqaaniin meesha uu ka socdo iyo meesha uu ka imaanayo. waxaan idiin sheegaa xornimadu waa sahlan tahay si lagu helo, laakiin si lagu lumiyo waa fududahay. su-aasha ka soo dhexbaxaysa maxay tahay? waa haddii si fudud lagu helayo si fudud lagu luminayo, su-aasha ka soo dhexbaxaysa waxay tahay qofka isu haysta inuu xor yahay laakiin aan xor ahayn. taasaa nasiib darraa. waxa dalka ka jiro inaad la socotiin waa lagama maarmaan. gobolkan anugu waxaan ku arkay qofka bani'aadamka hadduu waxaaso ha u yaraadaan ha u badnaadaan, waxaanu amay kaa baca waa dhihi karaa. laakiin qof qaawan oon habba haysan oo baqaaya hiiraanaan ku arka anugu meel kale kuma arka. waxaa ka soo dhexbaxaya war waad qaawantihe maxaad ka baqi? haddaan nabadmaro guutanayn waxaad ka baqi maxay yihiin? anigu taas waxaan ku arkay gobolkaas reer hiiraanu koow waxa ah waa nabadgelyada. shaqo badanna waa idinku socotaa. waxaad og tihiin iyo waxaadna ogeen iyo waxaan kor loo sheegi karinba waa jiraan. saddexdaasna waa jiraanu ku xisaabtamo. maxaa loo baahan yahay? nabadgelyada si siman in looga shaqeeyo ayaa muhiima. nabadgelyo haddaysan jirin dhibaato ma jirto, wanaag ma jiro. nabadgelyo haddii la waayo waa khalaas. waa qodobka koowaadu waa nabadgelyada. qodobka labaad, dadka haddii la socdaalo dhibba meeluu ku haraa. meeshaan waxaan ku fadhin jirnay 10 oday 8 oday 8 todobadii 8 anaa ka joogay, intii kale aaway. waa su-aal u baahan inaad isweydiisiin. waa su-aal u baahan inaad tidhaahdiin maxaa dhacay, maxaa furfurmay, see loo furfuray, yaa ka shaqeeyey. ma taqaaniin cid ka shaqaysay intiina. haddana reer hiiraanaadkii war wixii in la furfuro saa la yeelo yaa ka shaqeeyey, yaa ka mas-uula, yaa ka dambeeyey. waa inaad taqaaniin. ya hasa sheekama dambayna shaqaalo hoosaa jira. hase sheekh intuu soo biibo hiiraan ma imaan, laakiin waxaa ka shaqeeyey qof dad ku nool hiiraan oo caanaha hiiraan cabbo oo hilibka hiiraan cuno ayaa ka dambeeyey. waxaan leenahay marka ninka ku jisaara caanahu hiiraan ka cabbo ama ku jisaara hilibka uu ka cuno hiiraan, waxay kuu dhasha waa aragti. waa arkayna. waxaa kaloo jira dadka ka shaqaynaya waxaas dad reer hiiraana intaa aanay ku dhex jiraan. dad badanoo haddii maanta la weydiiye hebeloo warran aan wax sheegayn waa jiraan, dadaan wax sheegi karinna waa jira. waxaa la sheegaya nabadoonno diyaarad magac kale ku raacay. nabadoonno diyaarad ku raacay magacaysan lahayn waxay ka dhacday magaaladan. war anigu meeshaan waxaan ka sheegay oon fagaara ku sheegay ninkii reer hiiraana
oo doonaya inuu baxo waa bixi karaa asigoona gabban asagoona dhuuman ayadoo wax la yeeli karo maxaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay qofku naftiisa iyo jiritaankiisa iyo dadnimadiisa inuu ku kalsoon yahay jawhar waa kaasaa 10 jeer ka badan intaan idhi ninkii raba jawhar waa aadi karaa qof shaatiga laga soo qabanayo ma jiro waxaa isweydiina marka bini aadamku waa tibaaxaa haaliyi ilaahayna waa taliya waxaa isweydiina war biri waa jimco xaa ka soo bixi kara jawhar saada masabdiga xaa ka soo bixi karo waa in la isweydiiyo wuxuusan ilaahay qorin ma qormaa hebelaa samaynaya hebelaa yeelay hebelaa saan rabay waxaasoo dhan ma shaqaynaa waxa shaqaynaya tii ilaahay waxaa laydinka baahan yahay inaad ku kalsoonaataan dadnimadiina kartidiina jiritaankiina qufacaa inuu ku yidhaahdo war ma jirtid warku wuxuu joogaa ma jirtid iyo waa jira waxaan 5 bilood ka hor sheegay ujeeddada laysugu daraayo hiiraan iyo shabeelle waxaan idiin sheegay in la doonayo in la baabi'iyo magaca hiiraan maanta maxay joogtaa waa 5 bilood ka horaa sheegay maanta maxay joogtaa hir shabeelle in la yidhaahdo magacii hiiraan aawo حاشبه لو قري أصولا هيران الجديدة ين لقرا لحبلوت كهرا لديشك ما أنت ما هيسينو وحاشبلوت كهرا لديشك وجدد لقليه وحلا قرب وجدد بد لجوبه يبدأ الجاريوه وحجوا كتيبات هير شمال سؤاشا كسو بحيس وحوايا محاكو حقا محاكا دنبايا حد هير شمال الدول وريكم كيف بقى بس ما كيف وإن الدوغاتين كلمة مركة لشاقة ماشي وصعته يوحى الولد وعلى قبل معلمان حتى هيران جوتين حتى هير جوتين بري هيران مشاقين كرتيوا توال دواب مايا بركا هيران جوتين وايا يا كبسولة وحكم مسؤولة قف كستا أو صوماليا أو مسؤولية كهاية دول أنا أقول في أقول كذي أقول كذا نكى يقاوى لكن تدخل مجالنا ما يقانون وشيء كليه أو بني آدم استعماله شيء لما تفكره أو لما ميرو لقى قبض مرنا أنت لقى قبنا مرنا أنت لقى قبنا وحكله أو بني آدم استعماله أو لما ميرو لقى قبض تفكره قول هديتها ما هلا لقى قبضها هدي بابوتها استيرك لقى قبضها لكن هقولكم لما ميرو لقى قبنا labada meelood maxay tahay macnaheedu waa marka la doonayo qof in la fogeeyo waa sida saasa loo qaban iga riix waa hebel ma rabo marka kale waa la wareejina hebel ma rabaa in soo jiido haddana waxa ko marka geedaha lagu gooyo boodka
dabka la iskaga ridaa dabba laga male haddana waa shayga keliya oo laba macno leh oo laba meelood oo laga qabta leh marna intaa la qaban marna intaa la qaban waxaan la yaabanahay marka anugu ninka reer hiiraan oo intii inta qabtay yidhi hiiraan ma rabo iga riix reer hiiraanna waa ya oo dhinaca kale inta qabto jawharaan rabaa dhaxayo oo soo jiidanaya jawhar marka sawirka hankoolku gadaashaydana waa ku yaalaa hankoolku macnihiisa inaad barantiin siyaasaddu waa la mid iga riix iyo ii soo jiid wa marka siyaasad laga hadlo ya hadhowna boodkaa lagu tuuro muraadka haddii lagaa gaaro waa lagaa gaaro laakiin waxaa loo baahan yahay in la shallaayinoo waxa aad leedahay aad cisato qofkaa laga rabaa ya ogaada waxaad la cisan adikoo reer hiiraana cid idiin celinaysa ma jirto maanta warkaynu intaasaan ku gabagabaynaynaa waxa noo dhiman aan waxay ku jiraa marka dad badanaa waxay aaminsan yihiin wax la dhisi maayo wax la yeeli maayo waxaad ogaanaysiin in wax la dhisayo